Soomaaliyeed oo geesiyaal ah oo aan soo jeesan oo aan baqanaynin maanta waxaan isugu soo baxnay mudane gudoomiye annagoo fulinayna awaamiirta qaranka madaxdeena maamulkeena gobolka oo adigu aad wakiil uga tahay shacabka Soomaaliyeed ku dhaqan caasimadda gudoomiye waxaan diyaar u nahay waxaan nahay naftoodurayaal sidaagaasimo u sheegay ilaa maalintii la maareeyay anigu sartan soo bahoosteeda fadhiyo idna ka baqamayno dhawaaqa dadkeena ayaan dhulka hoostiisa ka maqlaynay dhulka hoostiisa ayaa codkooda laga maqlaayay la garan mayn meel laga soo bixiyo waxaa ka abuurmay ciidan la yidhaahdo 14 Oktoobar oo cadowga la dagaalamayo waxaa ka abuurmay wiil Soomaaliyeed oo hooyo Soomaaliyeed dhashay oo jaamacad ka baxay oo mastara inuu qorto askari inay saf u galaan inay ciidan noqdaan oo ay dagaalamaan 14 Oktoobar waa ku xoreynayo shabeellooyinka dharbaaxa ay cadowga waxaan rabaa dhalinyarooy waxa la haysto waa idinka waxa lagu dhuumaalaysanayana waa hooyada Soomaaliyeed gurigeeda dhexdiisa waxa soo abaabulayana waa lagu adeeganayo waa kuwa nagu midaba aan la dagaalano waxaan leeyahay nimanka daroogaysan ee afka soo duubtay ee baqanayo ee aan imaan karin dadka iyo ciidamada hortooda ee ganacsiga laynaya ee magaalada quruxdeeda diidaya oo hooyada Soomaaliyeed dilaya hooyo 80 sano jirto bal hooyo 80 sano jirto oo shaa karinayso qofka dilay maxuu noo reebtay ma wuxuu noo reebtay hooyo 80 sano jirto qofka dilay ma asxaanu noo sameeyey waryaada cabsanine nafta maalinay go'aysaa ayaan iska celino dhalinyarada Soomaaliyeed maqal dhawaaqayga dhalinyarada Soomaaliyeed maqal dhawaaqayga dhalinyarada Soomaaliyeed duga dambaalkayga dhalinyarada Soomaaliyeed iska celiya cadowga badan dheer dhulkeena laguma baahan karo waxaan nahay qani adduunkana waxaan rabaa inaan ugu baaqo uma baahnin raashin loo keeno waxaan u baahanahay in maskaxda iyo aqoontana laga dhiso waan isku filannahay mudane gudoomiye waxaad haysataa dad qiimo badan nagu hogaami cadaalad nagu horka cadaalad ummadda Soomaaliyeed ee magaaladan degana uma baahna reer hebel uma baahna qabiil waa inaan iska celin cadowga waa inaan dagaalano waa in ciidanka la taageero laakiin haddaan dhacno war dhagxaanta hala qaado dhagaxa la qaado aqli waa biyo dhaafac waa xiliga war aqligu waa kee waa la qaadayaa dhagaxa laakiin waa la soo agmaraa baabuurkiya raran garaashada lagu soo abaabulayaa guryaheennay hurdaan hooyo walba way taqaanimeeda hooyo baro ubadkaaga la saaxiib ubadkaaga saygaagu waa maxay muxuu yahay ninkaagu wiilkaagu muxuu qabtaa gabadhaadu xaggay aadaa adduunka meeshaa tagtaba amniga waxaa ka shaqeeya haweenka iyo dhalinyarada war maxaad u ogan tihiin ma waxaan nahay xoolo waa maxay wax nagu socda ma ogolaan karno maalin walbaba inaan balordiqnay waa inaan dagaalano biidnillaahi kariim hadalkayga ugu dambeeyo naftaydii tiinaba waxaan kula dardaarmaya saacadan xilligan waxaan kor taagannahay xinjirihii iyo dhiiggii qaraxii soobe ficlaan u baahana uma baahnin dhalinyaroy hadal iyo buuq looma baahneen buuqa iyo qalinka qaata al-shabaabkana aan la dagaalano waa mahadsantihiin ما شاء الله maamo Soomaaliyeed way jadbootay way idinla hadashay haddii aad hooyada maqli lahayd waa ugu hadlay xaqiiqo waaye wax run ah waaye halkan maalintii qofkii labaad oo gobolkan ahay aniga markaan soo gelay baalahaas laga soo bilaabo ilaa baalihiisa kale meydaan ka titilaabsanaya iyo dab holcaya sugaalkaygu dhinaca dabku ka qabsaday waxaan u yeelayay waa mustaqbalka dhallinyaradiinna waay dhallinyarada mustaqbalkiina ma ka shaqaynaysaan anigu miska dhicinaysaan inta dhimataa waa u naxariisto laakiin ka noolow ogow nololaad rabtaa aayaad rabtaa waxbarashaa rabtaa caafimaadaad rabtaa amniyaad rabtaa mara kuu imaanayo haddaadan adigu gelin odan dadaalin Soomaaliya ha noolaato mudane gudoomiye waqtiga celiya awgiisa waa naga weydiisay maamulka waa maasan tahay waxaan soo dhaweynayaa hal oday oo kamid ah odayaashii dadka halka kan ama eheladii nin kamid ah dhibaatada ku soo gaartay asoo matalaya oday Xuseen soo dhawow baaba soo dhawow halkan wixii ka dhacay qof walba Soomaaliya way ogtahay laakiin ninba si caloosha wuxuu hayaa
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباحي عمالكم هاي سرعوا هذا وين البداية يتبدأ من أوله وعاك تعسين يا بدك أنت ونروح السوق يا وحسوق على كل أنت بعد لماذا يا تعسين يا waxaan u mahadnaqayaa dowladda ku-meel-gaarka dowladda Soomaaliyeed oo gacan libax ka qaadatay dadkaas inay aruuriso ay u kaalmayso ay dadkii ka tageen dayactirto aan u mahadnaqayaa waxaan kale u mahadnaqayaa maamulka gobolka Banaadir oo hadda cusub oo shaqeynaya iyo kii horeba waxaan idin ka codsanayaa dadkii meesha isugu yimid inay cadowga dagaalqabaha loo midoobo la iska kaashado gacmaha lagu isqabsado oo geed bada uga darba insha allah wabilaa tawfiiq aad iyo aad ayuu naasaysi noogu soo gaartay aabbayaashii Soomaaliyeed ee maalintaas goobtan dhiigga iyo baxadhaca iyo lafihii iyo maqaarkii uruuriyay oo ka mid ahaa eeladii dhibaatadu eelkooda gaartay ayuu matalayey aad iyo aad ayuu u naadsan yahay suu noogu soo gaabiyey inta nibad alla la hariisto inta dhaawacana alla loo caafiyo hantiintay ka dhintane wax ka qayr badan alla ugu bedelo annagana kuwii naftooda waddankooda iyo diintooda difaaca allah naga dhigo mudane guddoomiye waxaan jeclahay inuu ku soo dhaweeyo guddoomiyaha guddiga maamulka qaranka inuu kelimato yidhahdo falay toobaan guddoomiye الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله الحمد لله قدوميها قبلك قدوميها كحييننا قدوميها أبابك وحقلنت قرنك قدوميها أشد دقوينك لما أنت وإلها شرفت لعي هلك كسو غيب قلي لما أنت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الآن كذب munaasabadan iyada isfasiraysa ayada dadka u sheegaysa waxay tahay waxaynu garanaynaa munaasabadan inay ahayd masiibo qaran oo ku dhacday ummadda Soomaaliyeed masiibadaas oo aad ogtihiin ilaa 1,000 qof oo Soomaaliyeed inay ku dhinteen intaa in lagay ku dhaawacmeen runtii waxa weeye ummadda Soomaaliyeed ama dowladda ama shacabka waxaa la muujiyay xilkasnimo isku duubnaan arrintaas waa laga jawaabay maanta maxay tahay jawaabta layna ka rabaa maanta jawaabta layna ka rabaa maxay tahay jawaabtaasi waxa weeye mar haddii gobolku helay guddoon dhaqaajin kara dadweynaha dhalinyarada haweenka iyo waxgaradka waxaa la rabaa inay la shaqeeyaan madaxda gobolka Banaadir waxaan leenahay haddii madaxdu ayna horkacdo dadweynuhuna si daacada ula shaqeeyo masiibadan oo kale runtii waa laga hortagi karaa waxna waa laga qaban karaa waxaan idin leeyahay maanta haddaad dhalinyarada Soomaaliyeed tihiin haweenka tihiin waxgaradka tihiin inaad gacmaha isqabsanno waxaa xaqiiqa ah gobolka Banaadir inuu guud ahaan nabad noqon doono waxaan rajaynayaa in Soomaaliya Allahu Akbar وإلى يومنا إن كبرتورا ودك أركعيا مجانا حمل عن كدقنا نبت كدقنا وإن كورتنا شباب كورتنا داعش كورتنا قوة قسم يا سو كلنا كورتنا وين صومالي عملوا صومالي عايزوا عليكم السلام هذا يوم سنتين إلى هين وحنا كان نعاو قبول وعربا waxaa gobolka madaxka ah mid goobjoog ahay maalintii waxaanu dhacayeen oo dalka kuwii ka horreeyey iyo kuwii ka dambeeyaba xog badanka guddoomiye dadka halkaa joogaay way ku yaqaaniin waxaan jeclahay inaan makaroofka ku soo dhaweeyo guddoomiyaha gobolka Banaadir ahmed duqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Maxamed Maxamuud Cumar Finish guddoomiye fadhiya tafadal shacabkaaga waa ku sacbinayaan waa ku soo dhaweynayaan fadhiya tafadal بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الشعب قبل بنادر ما
مسؤولينتا gobolka bahda saxaafadda dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshadeena Soomaaliyeed oo ay ka mid yihiin ciidamada iyo saraakiishooda dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh haddii aan hadalkayga la maqlayn waxaan idinka codsanayaa in gacanta saas loo taago taas macnaheedu waxa waaye hadalka ma maqalno waay walaalayaal maantay waa maalin qalbigeenna xusuus gaar ah oo aan wanaagsanayn ku reebtay sax ma tahay hadalka lama maqla miya maantay waa maalin qalbigeenna xusuus murugo leh ee aan wanaagsanayn ku reebtay maalintaas inaynaan si fudud u ilaabin ayaa loola jeedaa maanta inaan isugu nimaado fagaaraha hadda aan taagannahay marka ugu horraysa waxaan rabaa inaan halkan idinkaga caddeeyo farriin aan idiin soo gudbiyo farriin madaxweynaha jamhuuriyadda mudane maxamed cabdullaahi farmaajo iyo ra'iisul wasaarihiisa xasan cali khayre ay ii soo dhiibeen farriintaas madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhu ay ii soo dhiibeen waxay tahay naga gaarsiiya shacabka gobolka banaadir ee samirka badan ee dulqaadka badan inay ku habboonayd maantay inaan kala soo qayb galno munaasabadda taariikhiga ah oo ka turjumta dadkaani ma ilaabo cidda wax yeesha farriintaas waxay xambaarsan tahay maadaama ay tahay xilli qorrax kulayl ah meeshu ay tahay waddo laami ah haddaan dhammaanteen kala qayb qaadanno dhibaato qorrax waa rafaadayaane aan koobno cidda nooga qaybgelaysa isla markaas farriintayna gaarsiin karta intaas ayay soo fareen waad maqlaysiin aan filaya waxaad garan kartiin haddii mas'uuliyiin fara badan ay meesha yimaadaan hadalka la wareejiyo oo mas'uul bambar loo dhiibo in taagnaanshaha iyo qorraxda lagu dhibtoonayo si aan loogu dhibtoon ayagoo u dhimrinaya shacabkooda ayay yidhaahdeen wixii aan dhihi lahayn adigu noo dheh warkayga waad maqashinaan filaya sidaas darteed walaalayaal maalintan ayada ah maalintan 14 Oktoobar ee wixii aad ogeydeen ay ka dhaceen goobtan maxaa laga bartay waxa laga bartay inaan isku duubmi karno waxaa laga bartay inaan adkaan karno waxaa laga bartay in cadowgana aan u midowno waxaa laga bartay cadow aad u weyn aad iyo aad cadow u weyn oo gudaheena ku dhuumaalaysanaya inuu jiro ayaa laga bartay haddaba darsigaas aan cadowgeenna ka barannay ee foosha xun ayadoo lagu dul shaqaynaayo ayaa waxaa la sameeyey madaxweynaha Soomaaliya iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayagoo bulshaweynta Soomaaliyeed hor kacaya ayay bukaankii ku daaqeen dhiigooda sida aad halkaas ka arkaysiin madaxdii dawladda Soomaaliya madaxdii qaranka Soomaaliya haddii ay dhiigooda bixiyeen oo ay ku bixiyeen meel fagaaro ah
oo ay ku bixiyeen meel fagaaro ah taasi waxay ka dhigan tahay shacabka Soomaaliyeed oo faraha badanow walaalihiina dibarayaasha ah dhiiggiina siiya saasaa loo leeyahay walaalayaal waxaa kaloo laga bartay dhalinyarada Soomaaliyeed hadday yihiin kuwa ardayda ah iyo hadday yihiin kuwa waxbarasho dhameeyaba inay waxbarashadoodii tacliintoodii ay meel dhigaan oo ay yidhaahdaan wax walba waxaa ka horreeya inaan dalkeenna difaacno waxaan idin xasuusinayaa dhalinyaradii arrintaas u xilqaantay u kacday oo aan hubo inaad wada garanaysiin dhalinyaradii Soomaaliyeed aad u mahadsantiin shucuubtiina buusan okaaliya marka okaaliya aad u mahadsantiin dhalinyaradii Soomaaliyeed markay xiriireen madaxda dawladda waxay yidhaahdeen xaggeesa loo ah